السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيسدة تايوان ودا حيسا مريكان كي شينيس كمدة كبدن تضوهاتن سنو قرال لغو مقعبن الفرقسن وشريرد عن كاي بلومبرغ لغو مقعب وحكو قري ايا عوان وحوغا ديك قرال كيسا عدي تايوان حكونتا ايا حكومي دونتا عالمك هدي مريكان كو واي جزيرة تايوان معنا هدي تشاينا قبصدان جزيرة تايوان مريكان كمركاسا يقودن بين دونتا هوغامين تا عالمك حالة تايوان تاغن وحو قراغن قرب ديك سيدي مريكا سويس وكالي وبقرتودي وينادي إنجليزكا ay isku magacaab jirtay boqortooyadana cadcad ka dhicin sanadii 1960 markii Jamaal Cabdi Naasir madaxweynaha Masar marinka Suez oo xiray ama uu kala wareegay Ingiriiska xagaasna Ingiriisku ka cadhoodan inay bilaabeen inay weerar saddex goosado Faransiiska Israa'iil la socdeen ay bilaabeen in Masar ku soo qaadaan laakiin midowga Suufiyeed ee waqtiga jiray uga digay in Ingiriisku weerar soo qaadaan markaasna ugu dambeysay marinka Suez fareeda ka baxeen boqortooyada Ingiriiska inay dunida ka taliso نيل فرغسن wuxuu Taiwan tusaale uga dhigay waa marinka Suez ee Masar oo kale oo wuxuu leeyahay hadii Mareykanku jasiiradda Taiwan waayo waa isla qaabkii ay boqortooyada Ingiriisku marinka Suez marka weeyday ay u burburto kale waxaanu ciwaan uga dhigay qoraalkiisa cidii Taiwan xukunta ayaa xukumi doonta dunida hadaba maxaa muhiimadaas oo dhan Taiwan u yaalay soo kale China muxuu ka rabaa jasiiradda Taiwan haduu uu ku soo duulana dagaalweyne saddexaad ma dhalan doona muuqaalkan inta ku jirnaa kaga hadlayna fadlan hadan ugu cusubtay subscribe saarsan oo la socoto muuqaalada dambe داوشو عن تايوان وجزيرة رود على كونفورت بدر شينها وحنا كنول 4 مليون oo kaliya waxaana waligeed Taiwan kamid ahayd boqortooyinkii China soo maray muddo dheer laakiin wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad adduunka 1945 waxa China ka dhex bilowday dagaal sokeeye oo wuxuu dhaxay dagaalkan qolo qowmiyiinta la baxday soo kale qolo shuuciyiinta la baxday wuxuuna socday dagaalkan intii u dhaxaysay 1946 ilaa 1949 waxaana dagaalkaaba ku jabay isla markiiba qoladii qowmiyiinta ahayd oo markii dambe u firdhatay dhankaas jasiiradda Taiwan magaalo madaxna ka dhigatay magaalada Taipei xagaasayna kaga dhawaaqan xukuumad cusub oo matali doonta dhulweynaha Shiineeska oo dhan dhanka kale qoladii shuuciyiinta ahayd ee ku guuleystay dagaalka waxay magaalo madax ka dhigteen magaalada Peking ama Beijing lagu magacaabo waxaana xagaa kaga dhawaaqan xukuumad cusub oo madax u noqon doonta dhulweynaha Shiineeska oo dhan macnaha macal jasiiradda Taiwan xukuumadu noqon doonta caalamkana markaas wuxuu la kulmay laba xukuumadood oo mid ka dhisantay jasiiradda Taiwan midna ka dhisantay China oo labaduba leeyihiin anaka xukunna ama anaka metelna dhulweynaha Shiineeska oo dhan ama Shiineesku meel walba ku nool yihiin hadaba markaas maadaama dagaalkii qabooba socday oo u dhaxeeyay Suufiyeedkii iyo reer galbeedkii Mareykanku hogaaminayay way ku kala qaybsameen arrintan oo Suufiyeedkii shuuciga wuxuu aqoonsaday qoladii kale shuuciyada ahayd ee Peking ka talinisay xaq Mareykankii reer galbeedku aqoonsadeen qoladii kale ee Taipei ka talinisay Taiwan hadaba maadaama reer galbeedkii Mareykanka awood bateen Taiwan ayaa noqotay timatasha qaramada midoobay dhexdeeda Shiineeska oo dhan xukuumadii kale Beijing China ka dhisnayd waxay noqotay xukuumad banaan cidla iska taagan waana xagga ka bilowday khilaafka u dhaxeeya Shiineeska iyo Mareykanka hadaba damaca qowmiyiintu waligood wuxuu ahaa inay Shiineeska oo dhan xukumaan oo dhulweynaha Shiineeska hoos keenaan Taiwan laakiin damacoodaas uu suurtagali waayay xagaasayna go'aanaha gaadheen inay Shiineeska dhaafaan dhulweynihiisaas oo ay Taiwan ka dhigtaan xukuumad cusub oo ka madax bannaan dhulweynaha Shiineeska oo iyaga u gaar magaalo madaxna ka dhigteen magaalada Taipei lagu magacaabo dhanka China sanadii 1972 waxa madaxweyne Mareykanka Nixon loo magacaabay iyo soo kale hogaamiyay Shiineeska Peking fadhi Zhou Enlai waxa dhaxmaray wada hadal Mareykanku wuxuu la shirmid markaas arrimaha farban oo kamid ahayd kala go'itaanka Pakistan iyo Bangladesh soo kale Pakistan iyo Hindiya markaa hub nuclear ku tartamay dagaalkii Vietnam oo kale iyo arrimo farabadan xaga Zhou Enlai hogaamiyay Shiineesku hal qadiyada kaliya watay oo ahayd Taiwan loo aqoonsaday dhulweynaha Shiineeska kamid tahay حتى مر وزيركي arrimaha dibadda hore Mareykanka sanadii 2020 uu booqday dhulweynaha Shiineeska wasiirka arrimaha dibadda China wali hal qadiyad watay oo ahayd noo aqoonsaday in Taiwan ka mid tahay dhulweynaha Shiineeska madaxweyne Mareykanka Nixon sanadii 1972 uu ka aqbalay codsigii oo hogaamiyaha Shiineeska Zhou Enlai ee ahaa in Taiwan ay u aqoonsadeen ka mid tahay dhulweynaha Shiineeska soo kale Taiwan laga saaro qaramada midoobay oo lagu bedelo China inuu matalo Shiineeska oo dhan Mareykankuna arrintaa uu ka aqbalay heshiis ah waxaana gaadheen inay Taiwan ka mid tahay dhulweynaha Shiineeska Mareykanku siyaasadiisa la isku haleyn karin Taiwan uu cidleeyay markan waxaan u aqoonsanay ka mid tahay dhulweynaha Shiineeska
haddana mar kale ayaa sanadii 1979 Kongareeska Mareykanku go'aan soo saareen in heshiiskii China la galay nusqaamiyeen macnaha si guud markii hore Mareykanku wuxuu heshiis la galay China inay Taiwan ka mid tahay iyaga oo aanay dawlad madax bannaan ahayn laakiin mar dambe ay dhaheen wan nusqaamne go'aankaygaas oo Taiwan madax bannaanideeda waan taxgelinayna go'aankay qaateen oo ku taxgelinayna sidoo kale haddii uu Shiineysku isku dayo inay Taiwan soo waraan military ahaan waan siinayna taakulo oo waan caawinayna oo garab istaagin hore ayaan soo sheegnay siyaasadda Mareykanka in la isku haleyn karin haddaba Mareykanku China wuxuu la galay heshiis ah inuu aqoonsan yahay in Taiwan iyaga ka mid tahay dhanka kale xaq u leeyahay Taiwan oo noo taxgelinayna madax bannaanideeda military ahaan oo caawinayna laba arrimood oo aan islahayn ayuu labadaba ku wada dhaqmay hal mar wana siyaasadda ugu culus ee dhex taala Mareykanka iyo China muddo ka badan 70 sano haddaba jasiiraddan yar ee muuqaal ahaan u muuqata jasiirad iska tamar yar maxay Chinesku muhiimada u siinayaan sidoo kale muxuu Mareykanku ka damacsan jasiiradda Taiwan haddaba ku horeyna Shiineysku waxay aaminsan yihiin in Taiwan weligeedba ka mid ahaan jirtay boqortooyinkii China ee soo maray dhulkaas ayna ka mid ahaan doonto weligeedba dhulweynaha Chineska oo aan qadiyadda Taiwan China dhex taala reer galbeedku soo faragashan karin oo Taiwan siyaasad ahaan istaraatiijiyad ahaan iyo dhaqaale ahaanba China muhiim u tahay waxyaabaha kale militariga Shiineysku aaminsan yihiin waxaa ka mid ah inaan dhulweynaha Shiineska la difaaci karin haddaan Taiwan gacan lagu haynin oo taariikh ahaan waxay aaminsan yihiin ciidamada Shiineysku in cid walba isku dayda dhulweynaha Shiineska inay soo weerarto ay saldhig ka dhigan jireen jasiiradda Taiwan kadib xagga ka soo duuli jireen oo dhulweynaha Shiineska qabsan jireen waxaana taa soo daliishadaan taariikh aad u badan oo ka mid yihiin taariikh foga sidoo kale taariikh dhawa taariikhan dhaw soo daliishadaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan markii dagaalkii labaad adduunka socdo kale Jabaaniisku markay weerareen China waxay fadhiyeen oo ka weerareen jasiiradda Taiwan soo kale xataa markii shuuciyiinta iyo qowmiyintu isdagaaleen qowmiyintu jabeen waxa u baxsan dhankaasi jasiiradda Taiwan xaggaas saldhig ka dhigteen oo China ka cadaadiyeen siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo military ahaan badhankaas haddaba jasiiraddan yar koonfurta Shiineyska dhacda waxaan filaynaa fahantay sababta Shiineysku muhiimadaas oo dhan u siinayaan waxaana China iyo Taiwan dhexdooda dhaca marin aad u muhiim ah oo istaraatiiji ah oo ay maraan xamuulada ganacsiga tiknoolajiyadaha ay South Korea iyo Japan la wadaagaan caalamka labadan wadan oo xulufada ugu waaweyn ee dalka Mareykanka ganacsigooda u badan iyo xamuuladooda u badan marinka China iyo Taiwan u dhaxeeya ayuu maraa oo cidii Taiwan xukunta waxay xukumi doontaa marinkaas oo tusaale ahaan hadduu China Taiwan qabsado wuxuu xukumi doonaa marinkaas oo ay maraan shaxnada u badan ee South Korea Japan xulufada ugu waaweyn ee Mareykanka labadaas wadanna cunaha ayuu qaban doonaa waxaana soo kale Shiineysku haddii Taiwan qabsadaan awood u yeelan doonaan in Mareykanka ka saaraan gobolkaas oo dhan waxaana xagga ku noqon karaan quwadda koowaad ee caalamka dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba Shiineyskana way ka go'aantay in Taiwan soo ceshtaan haddii noqoto qaab wada hadal haddii laga marmo in qaab military ku soo ceshtaan oo waxaanu aragnaa maalin walba dowlatuska military ee Shiineysku ku sameeyaan jasiiradda Taiwan xagga Mareykanka iyo reer galbeedku jasiiradda Taiwan ku daabulaan hub nooc walba iyo saanad si iskaga dhiciyaan Shiineyska madaxweynihii hore Mareykanka Trump oo kale qadiyadda Taiwan wax weyn u arkay waxaan oran jiray Taiwan waa jasiirad yar oo macno lahayn soo kale Shiineysku waa dhul weyn haddii Shiineysku isku dayna Taiwan qabsadaan waxba kama qaban karno inaguna masaafada inta la gbinu jirna way ka fognahay marka muhiimada aad u farabadan muusiin jireen jasiiradda Taiwan dhanka kale madaxweynaha waqti xaadirkan Joe Biden muhiimad aad u weyn ayuu siiyay jasiiradda Taiwan generaalka Mareykanka militariga ay u qaabilsan Mareykanka koonfurta Shiineyska iyo sidoo kale badweynta Hindiya wuxuu sheegay in Shiineysku military ahaan Taiwan ku qabsadeen diyaargarowgoodu ku ekaan doono sanadda 2027 macna 6 sano kadib soo Shiineysku Taiwan ugu duulo u qabsado maxaa daba Shiineysku jasiirad yar oo awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ka tamar yar intaas oo dhan isku diyaarinayaan sababtu waxay tahay waxa dhalan kara dagaal weyne saddexaad oo jasiiradda Taiwan waxa soo caawin kara reer galbeedka sidoo kale Taiwan waxa haysataa hubka reer galbeedka oo dhan oo reer galbeedkuna taakula military nooc walba way siin karaan haddaba Shiineyska warkoodu waa cad yahay oo ah Taiwan si walba way ku soo noqonaysaa ama wada hadal ha noqoto ama qaab military ha noqoto dhulweynaha Shiineyska way ku soo noqon haddaba haddii Shiineysku qaab military ku galaan Taiwan Mareykanka laba arrimood mid unba u taala inuu Taiwan iska daayo oo la qabsado ama inuu galo dagaalkaas oo Taiwan caawiyo hadduu caawiyana dagaal weyne saddexaad weyn waxaan ka hadlaynaa haddaba saadaalimo la sameeyay la sheegay Taiwan dagaal haddii gasho oo Chinese-ka Taiwan is dagaalaan aanu Mareykanku geli doonin sababta Ukraine oo Taiwan intay doonto ka weyn ayaa Ruushku sanadii 2014 markuu jasiiradda Crimea ka qabsanayay Mareykanku kama hadal markaas sidoo uga hadli doona jasiirad yar oo Taiwan la laado oo aad u awood yar soo kale saadaalimo waxay sheegayaan 1970 Mareykanku wuxuu ahaa waqtigii ugu awoodda badnaa taariikhdiisa
waqtigaas ay Taiwan ka dhicin karo waa China oo waxa wada lahayn marka maanta uu Mareykanku boqolaal jeer ka wadi yahay waqtigiisa hore sidoo kale uu China boqolaal jeer ka wadan waqtigiisa hore lagama yaabo inuu Taiwan ka dhiciyo hadii la soo weeraro sidoo kale saadaalimaha qaar ayaa leh Mareykanku caawin doona Taiwan ilaa askarigiisa u dambeeya kaga dhimanaya sababtoo ah Shiineysku hadii Taiwan qabsadaan Mareykanku gobolkaas oo dhan uu ka baxaya xagaas aan China ku noqon doonaan quwada caalamiga oo Mareykanka ka adkaata marka waxa leeyihiin Mareykanku uu hidin doona Taiwan isagoo adeegsanaya xulufadiisa reer galbeedka saadaalimaha qaar ayaa sida aaminsan iyaguna laakiin xaqiiqadu waxay tahay siyaasadda Mareykanku siyaasad joogta ma xuluf ahaan xuluf la isku halayn kara ma ahan Mareykankana hadii Taiwan laga qabsado wuxuu noqon karaa sidii boqortooyada Ingiriiska markii laga qabsaday marinka kanaalka Suez oo boqortooyada Ingiriisku xaga ka gudeysay sababta Mareykanka Taiwan muhiimada ugu tahay waxa weeyaan waa meel uu ka cadaadin karo horumarka Shiineyska ee maalinka ka dambaysa si horumaraya sidoo kale waa meel uu ka ilaashan karo xulufadiisa Japan iyo South Korea oo kale muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay waxa rajaynayaa ugu yaraan in macluumaadku ugu filan ka faa'iiday oo ku saabsan qadiyadda Taiwan u dhaxaysa China iyo Mareykanka muddo ka badan 70 sano muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay fadlan haddii ku cajabay subscribe saar lana suuda ka asxaabtaada wassalaamu calaykum